كلن وناسن أصحابي الفيسبوك ما أنتوا أحد وحلو باللانسين هاي هي تحيصها له مانشستر يونايتد iyo Manchester City inkastoo ciyaaruhu kolba caynadaadaan oo cadtooshaad ogsoon tahay haddana ciriyo dhuli haddii ay cuslaadaan isku ciirimayaan saxafiga caanka ee cabdirasaaq xaaji cabdi catoosh cabdirasaaq bishmaweyne gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani cabdiraxmaan ciro oo ku baaqay in taageerayaashiisu ay birri magaalada Hargeysa isugu soo baxaan ninka uu dhigla mooyee dheeftooda ma sheegtid shacabka dhaqmaayay ku dhaqan Hargeysa niyo maad yar dhiman tahay mise waad ka dhimataa catoosh taliyaha ciidanka booliska Somaliland arrinkaasi waa uu ka digay haddii aad ogtahay in uu ka digay in la sheego been Saudiga wada nagu soo wada iska sii wadown magaciisu waa Cabdirasaaq Xaaji Catoosh cabdirasaaq waxa uu ku dhashay magaalada Gaarisa waqooyi bari Kenya sanadii 1974 wad mahadsantihiin la socodka aad la socotaan idaacadeena caawiya caalamka oo hadda hawada ku jirta intiina fikirka ka soo dhiibatana si gooni ayaan idinku mahad celinayaa habeenka ha idin wacnaado 47 jirkan la tisqaado ciyaalku waa mid ilaa iyo maanta qaadaya isaseega noloshiyo stress-ka diidayo iskay baan u noolahay waxaan ahay iska bulo istaaga fadhiista aniga ismaamula waxaan maanta aad ugu faraxsanahay wariyeenna caanka ah ee caalamiga Catoosh inaan la taaganahay markaan idin leeyahay ninku waa iska bulo maan ilaabin hablihiisa iyo yaraanka madaxbuur balse adin u jiidaa waa hore u dambayso inantii istaagtay agtiisa timaadaba agteedu ku suuxaa cabdirasaaq xaaji catoosh waa mid ka mid ah saxafiyiinta rugcadaaga ee ka howlgalay idaacadda BBC-da laanteeda af Soomaaliga waa mid ka mid ah saxafiyiinta rugcadaaga kuwa soo tabinta wararka doodaha BBC-da kuwa jimcayaasha saxafigan maalin dhaweed xidhay milyanka falowriska ay u hambaliyeen xitaa wasiirro arrimo dibadeed iyo kuwa dhaqan iyo ciyaareed waa mid caan ka barta Facebooka bartiisana ay ku xidhan yihiin 1 milyan oo qof dalka Iran oo dadku ay ka banaan baxayaan qiimaha shidaalka oo kor loo qaaday dalka Ciraaqna mudaharaad ayaa ka socda oo dadku waxay doonayaan isbedel siyaasadeed guud ahaan waxaan intaa ku soo khatimayaa ka sheekaynta saxafiga caanka Cabdirasaaq Catoosh cabdirasaaq bishmaweyne waaniga wareer gooyaalka daawan soo diriya filmis haddii ay tahay markii koobaad soo boqoto horena aad warag muuqaalaan baahinayo waxaanu soo baahinaa muuqaalo maalinla fadlan nagu soo biir habeenka iyo maalintaadu waxa ku wacnaadan